Asalaamu calaykum. Corona fayraska corona fayraska caalamka oo idil cabsida ku abuuray. Muxuu yahay fayraskan halista ahi? Siduu ugu soo gudbay dadka? Maxay tahay calaamadaha lagu garan karo qofka uu ku dhaco? Waa mid ka mid ah noocyada fayraska ku dhaca shimbiraha, waxaana markii ugu horreysay lagu arkay shimbirta fiidmeerta. Wuxuuna uga gudbay xayawaanada naasleyda, waxaana la diiwaan geliyay markii ugu horreysay ee uu aadanaha ku dhaco 1960kii, isagoo ku sababay hargabka. Xanuunka hargabka laf ahaantiisa waxaa sababay in ka badan 100 fayras oo kala duwan, balse sanadihii 2002 ilaa 2003 ayuu isu beddelay xanuunka loo yaqaan SARS, isagoo sababay dhimashada dad ku dhow 800 oo qof daafaha caalamka. Haddana sanadihii 2012 iyo 2013 ayaa lagu arkay magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga, iyadoo loogu magac daray fayraska corona ee Bariga Dhexe. Balse bishii Desembar ee sanadkii dhammaaday ee 2019 ayaa lagu arkay nooc cusub oo fayraskan ah magaalada Wuhan ee waddanka Shiinaha, iyadoo ay dowladda Shiinuhu sheegtay inay sabab u ahayd inuu xanuunku dadka u soo gudbo shimbirta fiidmeerta iyo masaska, kuwaasoo cunto ahaan u isticmaala Shiineysku. Iyadoo uu xanuunku ka soo bilowday suuqa hilibka ee magaalada Wuhan, iyadoo fayrasku si degdeg ah u faafay. Laakiin mushkiladda jirta ayaa ah inaanu marka qofka uu ku dhaco aanu ka muuqanin ilaa muddo 14 cisho ah. Waxaana uu leeyahay fayraskan calaamadaha hargabka oo kale, sida xumada, qufaca iyo neef-qabato ku dhaca qofka. Waxaana ay qaaday xukuumadda Shiinuhu tallaabo ay ku xakameynayso fiditaanka fayraskan, waxayna go'aan saartay 11 magaalo oo ay ku nool yihiin 56 milyan oo ay ku jirto magaaladii uu xanuunku ka soo bilowday ee Wuhan. Waxaana ay maraysaa tirada dadka uu dilay fayraskan 170 qof. Dadka u jiifana waxay sare u dhaafayaan 7700, balse waxaa weli la saadaalinayaa inay sare u kacaan dadka uu soo ridanayo fayraskan halista ahi. Waxaana ay gaadhay tirada dowladaha lagu arkay fayraskani 20 dowladood. Waxaana dadka la amray inaanay bannaanka u soo bixin cabsi laga qabo inuu xanuunku sii faafo aawadeed. Muuqaalo laga soo duubay magaalada Wuhan ayaa tusinaya magaalada oo ka madhan wax dhaqdhaqaaq ah haba yaraatee. Waxaa kaloo baraha bulshada qabsaday muuqaalo laga duubay dad uu ku dhacay fayraska corona oo laamiyada ku miyir daboolmaya. Waxaana ay ku dhawaaqday xukuumaddu inay dhisi doonto cusbitaal muddo 6 casho ah, kaasoo lagu dabiibi doono dadka uu soo rito fayraskan, iyadoo kuna guulaystay xadhigga jaridiisa. Waxayna dhakhaatiirtu soo jeediyeen talooyin dhowr ah inuu qofku raaco si uu ugu yaraan u badbaadiyo naftiisa, sida inuu si wacan u dhaqo gacmihiisa, iyo inuu ka fogaado inuu xidhiidh la sameeyo cid qabta fayraskan, iyo inuu xidho maskarada wejiga. Fayraskan ayaa laga cabsi qabaa inuu noqdo musiibo caalami ah, iyadoo dowlad kasta heegankii ugu sarreeyay ka gashay fayraskan, iyadoo madaxda caalamka lagu xidhay kaamiradaha sheega xaraaradda qofka. Waxa aynuna Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay inaga najeeyo fayraskan halista.